keenay in loo diido dadkii ka qayb qaatay ololaha nadaafadeed ee afarta xaafadood ee magaalada Beledweyne sidoo kalena si weyn kaga qayb qaatay ololaha nadaafadeed ee magaalada Beledweyne lacagtii ay ku shaqeynayeen. Waxaan rabaa waxyaabaha keenay iyo diidmada inaan halkan kula wadaago hadduu muuqaalkan ku soo gaaro meel la geersay qaybta hoose aragtidaada sidoo kalena ka mid noqo saaxiibada ku xidhan halkan. Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa muddooyinka ugu dambeeyay waxaa si weyn kaga socday olol nadaafadeed iyadoo isla markaana ololahan ay ka qayb qaadanayeen dad aad u fara badan oo iskugu jiro hooyooyin sidoo kale caruur ah kuwaas oo markii horeba xaafadooda markay joogeen looga soo waday in la siinayo lacag gaar ah $20 ah. Dadkan ayaa waxa ay sheegeen in muddo ku dhawaad 2 maalmood aysan haynin waxa lacagtaasi $20 ah sidoo kale looga soo waday xaafadooda iyadoo isla markaana dadkan ay sheegeen inay markaasi dadkii ka balan qaaday ama sidoo kale xaafadooda ka soo waday ay dhanka kale u sheegeen inay shaqeeyaan muddo usbuuc ah kadibna ay lacag helayaan, balse markii laga soo waday xaafadooda waxaa loo sheegay in la siin doono lacagta isla hadda ay qaadan doonaan, balse dadkan oo ay u badnaayeen hooyooyin xilli horena ka soo kalahay xaafadooda waxay sheegeen inay aad ugu xun yihiin in lacagtii ay ku shaqeeyeen qaybo ka mid ah markaasi afarta xaafadood ee magaalada Beledweyne ay ku xaqeen in la sii waayo xaqoodan la dhunsado. Haddaba sidee u aragtaa in dad laga soo wado xilli hore xaafadooda ay u badan yihiin hooyooyin gaar ah 70 ruux in loo diido lacagta ay ku shaqeynayeen ama dhididkoodii ay xaq u lahaayeen isla xilligaas in loo tuuro?